ددي وميسي معيه موادين كدعادي تلكيسا وهراني تدلدابا موشيو نكا وليد بدون قرين نكا وليد بدون قرين أيام هذا أنا قدام يرى نكاني guryaha noo dhisay 215 guri noo dhisay ee xanaanadii noogu daray maxay hayday masaajidkii aan ku tukanaynay ee noogu daray maxay hayday noogu daray madrasadihii ee macal dumarku dhiganayaan aniga laftayda dhigta walaalo waxaan ahay dadka degan beesha xaasleyda la yiraahdo ciyaalkaygu waxay ka dhigtaan jaabada iyo shaqaali jahar bay dhigtaan markaas adeed markasta uu roob yimaado waxa igu kalifi jirtay inaan wadada imaado oo daadka carruurtayda degta kaga qaado marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin imka waxba degkuma guro dawladda ayaa noo dhistay bridge loo halka hoosa oo marka ay carruurtaydu orod ku soo dul maraan kuna si dul maraan waxaan garanayaa halkan maaliyadda aan hor taaganahay siday ahaan jirtay siday maanta tahay waxaan garanayaa maaliyadda oo guryo kiraa ku jirta oo guryo kiraa qaadata guryaha laga kireeyaan garanayaa waxaan garanayaa halkii u foosha xumayde dunduntay siday magaaladu u burburtay oo maanta u qurux badan caafimaadka oo iyadoo meeshaas iska baabaasan tahay intay xukuumaddu maxamed siiraay qabsaday wallaahi dhakhtar badan oo naloo dhisay baa jirta umrihii cidlada ku go'ayay ee buuraha ku go'ayay ee maanta ka soo baxayay ee dhiig baxayay ee halka ku dhimanayay oo lala soo gaadho oo dhakhtarkii la dhigo dawadii oo naloo keeno dhakhaatiirtii oo naloo keeno iskuulku waxyaalo badan buu ka bedelay dadkani markii hore u dhagalaa oo indhalaa waxbarashadu waa indhihii iyo dhagihii qof wax qoraa ma jirin qof wax akhriyaana ma jirin maanta dadku waxuu noqday mutacallimiin buu ku noqday iyagoo oo beertoodii qodanaya iyagoo xoolahoogii eeganaya ayay heleen waxbarasho xukuumadda jirta muxuu ahaa xisbiga kulmiye wax badan buu ka qabtay dalka wax badan buu dalka ka qabtay madaxweynihii horena waxaan leeyahay sii dhawow madaxweynaha imika Musabbix Cabdin waxaan leeyahay soo dhawow ma leeyahay waana soo dhaweynaynaa dadka dalka joogana waxay u diyaar yihiin madaxweynaha mustaqbalka Musabbix waayada wax qabadka wixii ay qabteen iyo dalka nabadgelyada ay ka rideen iyo waxay qabteen dadku arkay dadku waxba arkaya halkan haraad baa nagu soo gaaray dhowr 400 iyo in badan baka farabadan haraadku aad buu noo hayay qofkii dhinta meydkiisa meel dheer oo 100 kiiloomitir loogu arooro oo la soo gaari karayn baa loogu aroori jiray kana riiki bal noo sameeyay aqalada dhexdoodan ka dhaansanay ilaahay baan habeen iyo dharab ugu mahadnaqnaa xukuumadan maanta dhisan ee kulmiye ee uu madax ka yahay Axmed Maxamuud Silaani oo madax ka yahay runtii aan aad baan ugu amaanayaa xagga nabadgelyada iyo amniga sugidiisa shacbiga uu ku qanacsan yahay xagga nabadgelyada inay dawladdu joogto uu ku qanacsan yahay anaguna haddaan culamo diinka nahay runtii arrinta aad baan dawladda ugu amaanaynaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Silaani iyo ku-xigeenkiisa Saylici anagoo ugu mahadnaqayna wax qabadkan ballaaran ee ka sameeyeen gobolada galbeedka gaar ahaan Awdal wada aragtan maanta waxaan joognaa madaxtooyadii alxamdulillah waa markii hore ay yeerto gobolka Awdal yeesho meel madaxtooya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxa guulaha noo qabsamay jaamacadda Mud maanta ka dhigay jaamacadda ugu magac weyn ee Soomaaliland iyo Soomaalida kaleba of course waxa weeye dadaalka shaqaalaha meesha jooga oo isku duuban iyo ardadooda iyo xukuumadda Soomaaliland oo runtii aan mar raba la iska tirayn qaybta weyn ee ay ka qaadatay marka jaamacadda shaqaalaheega iyo maamulkeega inta marka university community-ga markaad ka baxdo kaalinta kale waxa soo galay dawladda Soomaaliland xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waa barnaamij ku saabsan horumarka xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu ka fuliyay gobolada Awdal iyo Salale iyo degmooyinka hoos yimaada barnaamijkan oo dhameystiran filo maalmaha soo socda ددي وميسي معيه موادين كدعادي تلكيسا وهراني